أنا ku hadlayo maamulka magaca maamulka ahna doctor ka shaqeeya arag ay hospital waxaan rabaa maanta inaan maarta ii sheeg aan umada Soomaaliyeed ku wargelino inaan qabanay barnaamij campaign oo free ah oo ugu talagalnay inaan maarta ii sheeg dadka masaakiinta ee tabaalaysan aan awoodin inay xarumaha maarta ii sheeg ay tagaan oo lacaga ku fiiqdaan indhaha arag ay hospital wuxuu kamid yahay isbitaalada ugu waaweyn ee dalka waliba isticmaalayo qalabkii ugu dambeeyay oo ah laser haday ahaan lahaayeen iyo vacuum machines qalabkaas oo aan wadanka mostly available aan ka ahayn arag ay hospital bukaanada maanta ku qaabilnay waxay gaarayeen ilaa iyo 33 qof oo isugu jiray dad yar yar iyo dad waaweyn isbitaalka muhiimada ugu weyn waxa way inuu ka qayb qaato baahida uu qabaan inuu ka qayb qaato baahida bulshada Soomaaliyeed ay u qabaan daryeelka caafimaadka marka insha Allah waxaan rajeynayaa hadii Ilaahay yiraahdo inaan sii wadi doono hawlahaas aan bulshada u hayno wax qabadka maanta dadka u qaban waxay isugu jireen dad qaar aan dawooyin u qornay dad qaar arag ka dhibanaa oo ayagana aragoodii aan okiyaala aan siinay iyo dad qaliin u baahan oo ayagana already aan qaliinkoodii insha Allah taala isbuuca soo socdaan u fulinayno u sameynayno maadaama maanta ay selection ahayd oo dadkii qaliinka u baahnaa aan dooranayno isbitaalka shaqo ahaan waa shaqeynaya laakiin daafurkiisa insha Allah taala dhawaan ayaan rajeynaynaa hadii la yiraahdo inaan daafurno bulshada waxaan ugu baaqayaa insha Allah taala inay ka faa'iideystaan isbitaalka waxa jooga dad dhaqaatiir ah oo Soomaali ajnabi isugu jiro oo professional ah hadii la yiraahdo isbitaalka waxa standard u ah inuu indhaha ku qoro laser ama vacuum machine waxa jira qalabyo fara badan oo kala duwan oo mid walba insha Allah taala oo shaqo gooni ah qabto waxaan rajeynayaa insha Allah taala isbitaalku inay umada Soomaaliyeed ka faa'iideystaan isbitaalkeena wuxuu isbitaalada kale uga duwan yahay mostly anaga waxaan focus gareynaa oo xoog saarna dadka inaan ugu fiiqno laser oo casri ah qalabkeenana waa qalab aad u quality badan oo Germany ah mostly qalabka anaga isticmaalayno haday ahaan lahaayeen laserada haday ahaan lahaayeen computerada isticmaalayno waa qalab quality-giisa aad loo hubo oo standard ah marka insha Allah taala waxaan rajeynayaa dadkii bulshada Soomaaliyeed inaan u qaban doono shaqo la hubo oo maarta ii sheeg iyagana qanci gelis insha Allah taala